magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ilaa iyo habeennimadii xalay ay ka dhacayeen mudaharaadyo rabshado wata. Mudaharaadyadaas ayaa dhacay kadib markii maalinimadii shalay ciidamada Itoobiyaanku ay dagaal la galeen shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle kaasi oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Maqribnimadii shalay ayaa dhalinyaro iyagu markaasi ka yimid garoonada kubadda cagta ee magaalada Laascaanood ay soo dhexmareen magaalada Laascaanood dhexdeeda iyagoo ku dhawaaqay erayo ay ku diidan yihiin ciidamada Itoobiya ee soo galay magaalada Buuhoodle. Umuurtan uu soo farageliyay ciidanka booliska ee Somaliland waxaana ciidamadu bilaabeen inay markaasi rasaas ka ridaan taasi oo dhalinyarada mudaharaadka sameynaysan ay ku jawaabeen inay dhagxaan kaga jawaabaan. isla habeennimadii xalay ayaa dhalinyarada tan gadoodsan ay taayiro ku gubeen goob badan oo ka tirsan dariiqa faras magaalaha ee dhexmara magaalada Laascaanood. saaka subaxnimadii ayaa lagu waabaristay magaalada Laascaanood gaadiidka tiknikada iyo gawaarida gaashaaman ee ciidamada Somaliland kuwaasi oo dhufayso ka dhigtay dariiqyada magaalada Laascaanood. hase yeeshee umuurtan ayaan hakin mudaharaadkii isdaba joog ahaa ilaa iyo habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo dhalinyaradu ay soo daamarayeen hadba halka ay ciidanku ka guuraan isla marhaantaasina jidgooyooyin xoog la ku sameynayay dariiqa weyn ee faras magaalada Laascaanood qaarkoodna sida muuqata ay sideen calankii jamhuuriyadda Soomaaliya taasi oo ka xanaajisay ciidamada Somaliland. dhanka kalena magaalada Werwer oo ku taala duleedka waqooyi galbeed ee magaalada Laascaanood ayaa la sheegay in korimaad xoog leh uu ka dhexmaray ama uu ku dhexmaran raahdi ciidamada taabacsan hoggaanka SSC oo iyagu markaasi ku sugnaa deegaanka Werwer iyo ciidan Somaliland ka tirsan oo ka baxay magaalada Laascaanood. ciidankan ayaa markaasi dariiqa u galay ciidamada kolayada ee Somaliland ee halkaasi marayay waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. tiraba 3 askari oo ciidamada Somaliland ka tirsan ay gacanta ku dhigeen ciidamada hoggaanka SSC iyadoo 2 askari oo ka mid ah dhaawac soo gaaray halka la sheegay in sarkaal ka tirsan ciidamada Somaliland oo halkaasi ku nafbeelay. si kastoo ay haataba xaaladda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa maalmahan u eeg mid faraha ka sii baxaysa iyadoo mudaharaadyada iyo rabshadaha iyo dagaaladuba ay noqonayaan kuwa ku sii badanaya deegaanada SSC. dhanka kalena wararka naga soo gaaraya maxkamadda degmada Laascaanood ayaa sheegaya in ciidanka booliska ilaa iyo habeennimadii xalay qabqabteen tiro dhalinyaro oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo 50 dhalinyaro waxaana la sheegay in 20 ka mid ah dhalinyaradaasi oo da'doodu u dhaxayso 12 jir ilaa iyo 20 jir asaaka maxkamad lagu soo taagay magaalada Laascaanood ugu yaraan hal sano ayaa midkiiba lagu xukumay dhalinyaradaasi sida ay sheegayaan ilo xogogaal oo ku sugnaa maxkamadda degmada Laascaanood. shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo waalidiinta ubadkaasi dhalay ayaa dareen caro ku jirto ka muujinaya xariga loo geystay dhalinyaradaasi mudaharaadka sameynayay waxaana jira dhalinyaro aad u tiro badan oo iyagu qayb ka ahayn mudaharaadadii dhacay habeennimadii xalay ilaa iyo saaka hase yeeshee ciidamada booliska qaarkood ay ugu tageen guryahooda. Axmed Ali Faarax, ETN TV, Laascaanood.